ودو daawade waxaan rabaa inaan kula wadaago xogta iyo macluumaadka iyo wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira tiro hoobiyaal ah oo xalay ku dhacay deegaanada dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa Garas Valley iyo deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho waxa la tilmaamay in dhowr hoobiye ay ku dhaceen xaafado ay degan yihiin dad shacab ah inkastoo aan la soo warin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hoobiyaashaasi halkaasi ku soo dhacay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska Soomaaliyeed ee amniga xaqiijinaya ee ku sugan deegaanada ay wax ku dhaceen ayaa waxa la tilmaamay in aroornimadii hore ee saaka howlgallo qorsheysan halkaasi ay ka fuliyeen iyaga oo doonaya in ay gacanta ku soo dhigaan xubno la tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda shabaab oo ku sugan deegaano iyo degmooyin dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay howlgallo qorsheysan ayaa waxa ay laamaha amniga qaybahooda kala duwan ka fulinayeen wadada dheer ee xiriirisa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose howlgalladaasi saraakiisha horkacaysa waxa ay ku sheegeen ujeedkoodu in uu yahay in lagu xaqiijiyo amniga waxay ahaayeen howlgallada kuwa guri lagu baarayay maadaama la doonayo in amniga la xaqiijiyo balse howlgalladan saaka ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee laamaha amniga ay ka wadaan duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa imaanaya xilli shalay weerar gaari qarax siday loo adeegsaday lagu qaaday bar control oo ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halka loo yaqaano Macaani intaasi kadib goobtaasi waxaa gaaray taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Sambalolshe isaga oo u kuurgelayay goobaha ay wax ka dhaceen iyo xaaladda amni sida ay tahay waxaana laamaha amniga qaybahooda kala duwan la faray in ay aad u xaqiijiyaan amniga sidoo kalena ay ka foojignaadaan weerarada mararka qaar kooxda shabaab ay ku soo qaadi karaan fariisimaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanada dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ilaa iyo iminka waxa soconaya howlgallada qorsheysan oo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha nabad sugidda iyo sidoo kale booliskaba ay ka fulinayaan inta u dhaxaysa Treedisho iyo sidoo kale deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho howlgallada ayaa ah kuwa amniga lagu xaqiijinayo waxaana ciidanku ay guri u baarayaan goobaha la tuhunsan yahay in ay ku dhuumaalaysanayaan xubno ka tirsan kooxda shabaab saraakiisha qaarkood oo aanu la hadalnay waxa ay tilmaameen in ay jiraan xubno ka tirsan kooxda shabaab oo lagu soo qabtay howlgalladaasi balse dib lagala wadaagi doono warbaahinta maalmihii ugu dambeeyay howlgallo baaxadoodu ay aad u weyn yihiin ayaa waxa ay ka soconayeen deegaanada caduleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana howlgalladaasi ay ahaayeen kuwa lagu xaqiijinaya amniga waxaana iska kaashanayay ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwaasi oo guri u baarayay xaafadaha ay ka kooban yihiin deegaanada dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wararkan iyo wixii ku soo kordhay iyo xogaha la xiriira baaritaanada iyo howlgallada socda waxaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal wararkeena iyo warbixinadeena soo socda